kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii gaarka oo idinkaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay iyo sida lagu hortagi karo waa mar kale iyo barnaamijkii gaarka oo idinkaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay iyo sida loogu hortagi karo haddaba dhegeystayaal toddobaadkii hore iyo toddobaadkii ka horreeyaba ka qaybgalayaasha barnaamijka ee dhanka su'aalaha ka jawaabay lana socday sheekada ee guulaystay waa la abaalmariyey dhammaanba waa loo tuuray lacagahoodii iyadoo lacagtaasuna ay tahay mid kaasha sidoo kalena lacagaha iminka abaalmarinta maanta lagu heli doono barnaamijka gudihiisa waxaa naga xusuusa inay noqon doonto lacaga doolar ah oo kaasha oo aysan kaar ahayn sidaa daraaddeedna dhegeystihii dhegeysta sheekada barnaamijka ee su'aalaha laga weydiiyey sheekada ka jawaaba in la abaalmarin doono sidaa daraaddeed dhegeystayaasha galabta waxaan ka codsanayaa inay barnaamijka si gaara ula socdaan si marka ay uga faa'iidaystaan sheekada oo qaybta dambe qaadka taleefanada dooda 20 daqiiqo kadib su'aalaha la weydiiyo ee sheekada ku saabsan la socodka waxa ay ku saabsan haddii ay ka jawaabaan abaalmarino kale ay ku heli doonaan sidaa daraaddeed barnaamijka dhegeystayaal dhanka farsamada waxaa gacan naga siinaya farsamayaqaan Cabdicaziz Daahir Cali Sow waxaa la socodsiinaya anigoo Cabdicaziz Cabdullaahi Maxamed Riyali hay'adda marqaati ayaa barnaamijkan gacan ka geysatay idaacadda Banaadirna way baahaysaa marka hore barnaamijka galabta waxaa igu martiya musharaxa madaxweynaha gobolada dhexe u taagan Marwo Dahaba Cuud sidaa daraaddeed inta aan u gudbin dhanka martida waxaan jeclaan lahaa in aan sheekada soo qabto dhegeysta sheekada dhuux oo dhegeyso kadibna su'aalaha ka jawaab oo abaalmarin lacageed ku qaado galabta qaybta dambe haddii aad sheekada dhegeysan oo aad sheekada la socon ma guulaysan kartid ayaan ku leeyahay sidaa daraaddeed su'aalaha la isweydiinayo sheekada ayay ku saabsan yihiin qaybta hore sheekada liiskan dadkan la qoray dhibaatada iyo rafaadka iyo dagaalka iyo colaadda ka soo cararay waa dad Soomaaliyeed iyo dad Yemeniya oo walaalaheena oo qaharka Yemen ka soo cararay marka soo dhawaada meeshaan anigula tala galay halkan daga qaarkiin dad walaalaha oo zaciimiina guriyo siiyeen kuwiina kalena xarumaha Yementu ay leedahay magaalada ku yaal daga lacag ayaa la aruurinaya ku hor loo aruuriyaa jiro gudiya idin magacawnay marka qof walba waan soo dhaweynaynaa marka waxa balan ah oo balan noo ah oo markale balan noo ah inaan si cadaalada oo sinaan aan wax idin siino marka qof walba hawshan meesha ka leedahay waa hawl sadaqa ah waa inay ka gashaa hawshan oo bilaabayna ana dadkii hadda yimid soo qaxay iska dhiga okay aye السلام عليكم. وعليكم السلام. سودو ولا المقعد. وندوها مقعد عبد الله بن عبد الله. عبد الله محاضرنا محل نقول تمد. إن إسديوان قليان روي. إن إسديوان قليس. دتك سوق حن كمدا يمن كسو عرري. كاركاجس. كاركي وكنا هارك. عبد الله كاركان يكسي. كاركان وحا إسيسي هي أد قحوتيجا يمن حليان جوجني هي أد قحوتيان سيسي. كي أربورك الجوسي ما. أربورك مع متكل وكاس. كاسنا وطا. كاسنا وطا. أو ضدك القحوتية مركز صوت دجال سيناي.
waata Cabdallah hadii la dakar aad wato waxaan karna malahan Cabdallah waa qoran tahay alaab iyo waxma wadato miskaliga socdo alaab waa watay kiligeena waa socdaa ninkan meel nasiinaha la geeyo waa in alaadi ka soo cararay in dhibaataysan waaye meel nasiinaha la geeyo marka waa tahay yaa kale oo kula socday hadeertan kiliga shakhsigiga u socdaa shakhsiga u socdaa hal qola dhinaa qolka dhiman bal adiga galbal ninkaana muxuu ahaa ay soo gudub adigana waa ku salaamay waan ka qaaday xaaladaada alxamdulillah niyo dadkii Yemen ka soo cararay gaar ahaan magaalada dhahay Ticis baan kamid ahaa aniga iyo caruurtii iyo xaaskii kulli meel inta lagu xawaa gargaar lagu fidiyay dad oo xaafada wax noo soo waxayeen dhar iyo raashin nolol ka keen marka halkaas aan joognaa waxa la marka meeshan jaalid Allah wax lagu qaybsanayo Allah maanta soo baxay adigana halkii maanta joogtid marka halkan waxa ka jiro ina wax iga faahfaahisan rabaa marka anaga qof Yemen ka yimid iyo qof Yemen u carar shaqo malin wixii qaxooti ahaan halkan noogu yimid kaar wato kaarkii kale qaxootiga wato xaruntan soo gaar dajina u sameeynayna marka qof xaafad degan shaqo ku malin anaga ana xaafad ma degan cid oo diriska soo dhaweysay aniga iyo caruurteedii xaaskiga halkaas ku wada noolnahay hadda xitaa waxaan looyahay diidan maanta aadan gurigan ka bixin birwaan ilaga saaraa marka xaram haysto Allah ku barakeeyo macquul ma ahanay لا حجر لا هودي سوقل ساتا walaal waa fiican alxamdulillah xaaladaada abost walaalo dadka qaxootiga haayaan hay waxa la yiraahdaa xafiiskaas la iska diiwaan gelinaya xafiiska taga xafiiska ku soo aaday ma qaxootiga Yemen tahay min Soomaalida Yemen u qaxday ayaa tahay ee soo qaxday qaxootiga Yemen taanahay qaxootiga Yemen tahay ha ma lahuba ha aw karkaaga waa kan kaarkayga waa tahay karkan waa karka qaxootiga lu Soomaan ha waayahay magaca sheeg aniga binti Abdi Quwayt binti ma jiro hadda meel maartay maxalli laada aan dejino laakiin teenna ku sameeynayna qof Yemen ka yimid oo maskiin oo qaxaya tahay xaggan waxa ka sii qaadataa saliid iyo sokor iyo bur iyo wax yar caano boora sii qaado qaybtaasna sii deg wixii yimaado lacagana waa lagu sii doonaa insha Allah ayabo mahadsanid oo dad kula socdana jiro oo caruura wataani dhalay caruura wata diiwaan gashin caruurtaada maya haye sano baan haye kaan iskilis garayno waa inta hool tahay Abdallah Abdallah waran waa fiicanahay warkiisi qeyb intee ka imaatay maanta inta soo degi maxaa ka wadaasaan inta soo degi maxaa qaxootiga ma kamideenaani weligay ma maqlin weligay ma maqlin goorma qaxooti noqotay 12 sano anoo soo joognay ani Yemen ma ka soo cararno asalkeeba macnaha markii hore Yemen ma kaarkii maxaa waa ani ma ku weydiinoy aniga kaarkaaga maxaa waa Yemen ma ku weydiinoy macnaha adiga Yemen kama soo cararin Yemen waa ka timid Yemen waa ka soo cararay ma ka soo cararin aad ma hubtid ma hubtid 12 sano ka hor meesha liida Abdallah run asku sheegnani adi ani Yemen soo buriye Yemen waa ka timide ma ka soo cararin labadaba isku mid waa imaad waa ka soo cararay baya carro Allah dadka si axmed loo jiro maxaa dhib jiro waxa dhibki jiro waxa ku sheega macnaha hadda qaxooti ay ma dhowsa filka qaxooti ma ku tirtaa maxaa u jiro waa aad maxaa ka qaldan waxaad ka baari taaybo Yemen waa ka soo carar dagaalada ay saameeyeen dad far badan asxaabtida waa la xirtay ani farci diglaha ku soo fakaday goorma Yemen tagtay Abdallah kaarkan maxaa aad ma asiisay war kaarkan kii aad ku timid waa Yemen aad kaga timaad waagi hore macnaha aad ku timide ani 12 sano dirisnaa moogtaa maniin 12 sano hadda la ku imaadani ma inkiruusa hadana ani ma inkiruusa waxa waa sheeka barley wadacdi macnaha cadday ma inkiruusa hadda Abdallah ina kisku siyaarata ma iska aamus ma hortaan mi kasay adiga waa ku kasa mi kasay waa ku kasa horta waa ku sheegahay sideen laakiin ani ina in kasaas ku dayin macnaha hadda zaid jaq dhooda hoos ila hadalno fiiri hadda qaxooti ma isku bedeshay qaxooti ma noqonaysa qaxooti ani qaxooti معناها أساس واحد ده وحكون شو حميك ثاني والله وكشفاء والله هديك له هذني وحاجة بعض واي بهاش شاعن كقالا شيك أنا لا بقي تمثل ما هو اسمه أنا جيجا كينا أي معيا كينا يا أوتا كينا وصوفي لنا هنا ده تدرس كحافظ أنا صوفي وحكي صوتين عرب
عربية كل هالله أنا عرايان كوي دائما كوي أدينا يمتى من الأسبوع وعليكم السلام ورحمة حالدينا وفي عنا ارتبوقينا ما أنت نوع دقي سنة يورت أنت مش أنا حوجا ما تسكوري جاي ميلana meel madax laga isdhahay ya buuqay marka labadiina buuqaysan kale eedadiniyo labadiina maanta buuqaysan buuqaysan arinta ah dadka Yemen ka soo cararay oo hada xaqooda iyo waxyaabahooda soma ya xagga la diiwaangeliyay oo qaxootiga ah macna ma diiwaangelin maradinay diiwaangelinta xagga waxa diiwaangelintii dad xuna meesha ku soo arkay marka maanta iskuulada leeyahay oo u jeeday marka adiga wajigaaga wuxuu ileeyahay in xoogaa bulshada qaabi karo oo dadka dhibaataysan wax u qaban karo inaad wax ku sheegtaan marka Yemen horta ka soo cararay aniga iyo xaaskeyga iyo caruurteyda goorma ka soo carartay dagaaladan hadda ugu dambeeyay hadda dagaalada socdaba hadaba ka soo cararabo waxaan ka soo deganay markii ugu horeysay Boosaaso halkaas aan lagu soo dhaweeyay ad waxayna la siiyay agab Muqdisho baawur aadaysan la soo saaray safar Muqdisho markii ay imaanay ani ma kala garanayo Muqdisho miya ani runta kaga hadlo goboladan adii dhaxal marka waxay aad balanta cid dirisa ilaahay amarkiisa nagu aaday oo meelana la dajiyay oo islaam ilaahay noo baxshay marka waxaanu la qabtay waxoogaa meesha raashinkeena waxaana la siiyay dharkeena iyo jiifana la siiyay marka waxaan tagay meel jariid Allah waxa oo lagu kala qaybsanay meeshii markaan tagay waxa la dhaabo adiga dada haysataa diriskaaga dhaqan aan diriskayga ma la joogi gobolkayga ma joogi guriga waa laga soo baxshay caruurtina banaanka joogan iyo xaaskayga marka arintaas in aad garab bashaan jeclaan lahaa adiga kaliga ma soo qaxay horta masdada la soo qaxday dadka la soo qaxday aawe dadkii aan la soo qaxay reer Muqdisho waaye qof walba qaar gurigooda aadeen qaarna jaliiday ku xaroodeen anigana banaanka taaganahay gobolkayga xitaa wax lacag raxtaan la siiyay xitaa oo gobolkayga aan ku aadaa rabaa xitaa oo gaari alla sii saaro safar saan u sii noqdo safar salaam sallallahu waxaan ku sheegaa haye horta ani ninkan waa isaysanay runta waa waxaan isku haysanaa ku sheegaa waan gartay ninkan 12 sano diris ahayn 12 sano ya diris ahayn beentis waa dagayta adiga 12 sano diris ahayn waan gartay isku xaafada ahayn haye maanta wuxuu taagay qaxooti ah بسم الله 12 سنة كورو كان كيما المحل لا كيفيني يما انت كدغني 12 سنة كورو يما انت كدغني تعيس ما كدغني انا صنعه دغنا صنعاني ددك waxa kamida صنعه وعن سنه مغل وكسو عرب يمني واي اسغا يمني اصل يمني واي لكن مر هورو كيما هذا كيما ninka xaqeen una ninkan oo kala waa kana kala uu rabaa inuu booskiina raadi nag dhaqaajina ma yaa soo ku xafiiska tagayna oo kale xafiiska warkaas ma jiro حفيزك ما انت aniga yemani ah yemani ma tiidiya ku dhahay waa imaada waa imaada yemani ma ku weysta 20 qofoodan keenan ku dhahay 25 keen dalashiya ku weysto saxay u fahmay waxa dhamaadeen haqalin ifham fiiri kistaada ku siina Soomaali wayno Soomaali waa ninkan oo 12 sano joogay soco nakay soo bax duqa soo socor badan ma la iska rabay أو مدينة أنت هذا مدينة ها مدينة ستة وفي عنا ما أنت ما أنت هذي واي هيا محل صبح يوطي وحاني شكل وانا بهاي سلقة كاس ودعوة شو قاعد سلقها كويس ماما وحي مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري شبا ما تتيرا من تينا صاع فايسيا وسوق الدبر بينيا شعينا غير مارينيا مريتي ضمك ديغن اسموغان هاو بدعن اسموغان هاو بدعن دعونا حبيبي يا جو أنا جوج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وحن كهرباء هاي ولا له حفيز كان أنت شقة بدون وقف صح واي التون كانوا ولا تجيه وصح وحال رباء إلى هذا واحد قط آخر واحد قط وصح دق مودي دق موني هديك دقيق هاي دق واحد كمان اسمه جوجنا هاي دق واحد العني وواحد بحر لكن واحد كل شيء وواحد كهرين هاي ولا قاعد كسبتها ما كهراي صح حماته أنت كسبتها كهري ميسو صح إن نكا أوجد وأنا مسكينة
ninkan waa saray hoos waragni mas aragteen xogta rasmiga maanta lagu sheegaya hay ninkan waa maskiin hay waa dadkii Yemen ka soo cararay Soomaalida qaxootigeeda soo carartay way hay ninka meesha dejisayna oo aad kaarka siisay oo dejisay deegaan ka dhigtay 12 sano inaan daris ahayn way suuragal ma ana ku sheegay 12 sano inaan daris ahayn way hay ay auto ay jijo ay bintow ay batuulo kulli darisanahay صح isku xaafadan deganay 12 sano Yemen waa nin Yemen u dhashay way صح 12 sano ka hor oo Yemen ka soo guuro ilmihiisii wixii ka soo watay صح oo inta keensaday صح maanta reer Yemen soo qaxay markuu maqlana kaar uu la soo orday صح kaarkii uu haysan jiray oo waagi hore wax lagu sii jiray صح oo kuula imaaday kaarku ku keenay taariikhda fiiri sanadka fiiri waxa dhan fiiri aniga ninkan kuma tixgelin kaarka Yemeniga oo heesto laakiin waxa musuq maasuq sameeyay ninka airportka jooga ee kaarka dadka soo degay siiyay taasay u taala ma haysta kaarkaas wuu ku sheegay macna waa haysta afku ka yiri ma haysto fiiri kaarka kale aw kaarka kale horta wax ku sheego war mar ninkan wuu qeyli horta ifaham aniga waxa horta asal Yemeniya ahay ma lagu waasto Yemeniya ahay aniga jira marka 12 sano ka hor wadankeen nabad u ahay Soomaalida anageena soo qaxid anaga wax siineenay hay 12 sano ka hor nin wadankiisa ka soo carra oo nabad ma jira maya maxuu ninkan ku waala marka laakiin haddii cadaato diyaar waaye okay kaarki garoonka markaa soo degaysa keen surwaalkeyga jeebkiisa ku jiray doon xaafada ugu laabana doon sabix kaarki doon kaarki keen waa kana fiiri ninkan waa wataa kaarkiisa waa wataa wixii waa wataa fiiri kaarkeyga oo boosaas markaa ka soo degay garoonka waa wataa kaarki kala garoonka ka soo degayna waa wataa waa kana marka in wax la qabtaan rabaan hadda ninkan nin madoo waan isir dadka caado Soomaali waa ninkan Soomaalida Yemen ka soo qaxday iyo Yemen soo qaxday Soomaali way la siinay kuwaas wax lagu lama dhiibin anaga Soomaali Yemen ka soo qaxday ninkan qaxootiga Yemen markii lagu yiri ma aha Yemen kaliya ma Soomaali waxay wadaan ehel ninkan isku wadan yihiin sidaas ugu danaanay kaarki lima wada adi kaarki keen shaatiga lagu dhaqaalay hado maxaan ku dhahay haloor alaabtiisa banaanka ma saaro banaanka ninkan fiiri nin weyn tahay ilma leedahay caruura leedahay xaasa leedahay waxa aasiinaysid ma ogi tahay inay wax xaraan yihiin oo dhibaato ilibkaaga kulmi karo dunya aakhiro waa ogahay ilaahay ka baq laakiin baahiya jirto baahida ma lisku naco adiga waxa u baahan tahay dartaan i weydiiso waxa soo qaado noo kala barxataa baahiya jirto baahi ma lagu kala tagay bar qaado barna aan isii musuq maasuq mar raba aniga war baahida ku haysameeyta xabadkaaga intu soo leeyahay ma shaqaysatid ani wadankee ma joog inta ka shaqaysana wadankaaga joogta 12 sano ka horna waa joogta 12 sano hadda waa deganeen oo shaqayso meelan ka waa lagu yaqaanaa nin la yaqaanaa taas wadan baa ku daysani diidnay bulshadaan ka dhashay halyeeriya waaye sidayda dhuuso waa jaxalkan bulshadaan ka dhashay halyeeriya waaye sidayda dhuuso waa jaxalkan waa hagaag haddaba inta dhegaysata sheekada su-aaluhu sheekada ayay ka imaan doonaan dhegaystayaashii toddobaadka hore la abaal mariyey qaarkood ayaa fariimo ii soo diraya waa mahadsantiin ayaan leeyahay haddaba dhegaystayaasha guulaysta galabtana lacagtooda waa la siin doonaa oo waa la bixin doonaa lacagta ku guulaystada su-aalaha sheekada lagaa weydiinayo ma ahan kaar waa lacag kaasha oo qofka afurkiisa uu ku samaysan karo islamarkaana siyaabo kale uu isticmaali karo amba shoobinka dhig adiga ku taalla sidaa daraaddeed dhegayste waxaad naga soo wici kartaa labada teleefon ee 64 iyo weliba 642 goordhow waxaan gelayaa qaadka telefoon dhegeystayaasha balse dahaba cuud waa musharaxa u taagan xilka madaxweyne ee maamulka gobolada dhexe haddaba wariye xuseen axmed daacad maxamed xuseen axmed daacad ayaa dhowr su-aal ka weydiiyey arrimaha geed socodka shirkaasi oo ay sheegtay in musuq maasuq fara badan uu ka taagan yahay bal wax yar aynu ka dhegeysano kadibna waxaynu u gudbaynaa qaybta fikirka iyo weliba su-aalaha bulshada bismillahi raxmaan raxiim shirka gobolada dhexe ee mudug iyo galguduud qaabka uu socdo waa qaab aan macnaha ii sheeg aan la qiyaasi karin meesha uu socdo iyo wajhada uu leeyahay waa garta
waxaan lagu sifeynayaa maadaama shirku marka hore uu ku bilaawday si aan si qalad ah haddana qaladka natiijadiisii wax badan aan sheegno macnaha qaladka natiijada xun ka imaan doonto waa gartay marka muxuu ahayd waxa waaye ummadda horta waxaa la rabaa dadka deegaanka oo xaqa u leh inay dalka iyo dalka wax ku leeyihiin oo ayaga la warsado masiirkooda ay ahayd waa tahay haddii aad tihiin musharaxiinta u taagan qabashada maamulka gobolada dhexe iminka loo sameynayo ma waxaad leedihiin dadkii deegaanka inta badan ma lagala tashan ayaha gobolada dhexe ee soomaaliya inta badan saasaan isleenahay sababta waxaan kusoo leenaynaa maadaama uu muxuu dadka cuqaasha ahay oo goboladan loo yaqiinay aysan inta badan meesha ku jirin oo marka horeba dad laga keenay muxuu xamar oo dhaqan lagu sheegayo ay u badan yihiin meesha haddana caburis badan lagu sameeyey oo aan xataa is awood ay ku hadlaan aysan lahayn ergeda sidoo kale awood aysan ku hadlaan aysan lahayn gudihii macnaha jiha wareer uu ka jiro oo muxuu ciidamo iyo hadiyaad tahdiid badan ay ka jiraan waxaa umalaysaa marka shirka inuu qaab jecleysi ah ku socdo oo qofkii macnaha oo marka lasoo siiyey qaadadiisa xataa in banaanka in laga dhigo shirka uu rabo waa tahay marka arrintan marka aad ka caawinayseen madaxa dowladda ma gudbiseen oo ma kala hadasheen si wax looga qabto annaga in badan aan ka sheegnay muxuu ahayd warbaahinta oo aan leenahay muxuu ahayd shirka marka horena qaabdaro ku socdaa talada waa in lagu soo celiyo horta gacanta odayaasha laakiin wax daqshad diyaarsan marka la keeno oo la yidhaaho xildhibaanadu waa diyaarsan yihiin ergadii waa ogtahay inta badan waa lasoo qoro xaggaa laga soo qoray dadkii horey u yimid oo ka yimid degmooyinka yimidna ayagoon wax talaa ku lahayn banaanka dhogeyiin ay banaanka joogaan khayr allah siiyo maamulkaan xiganay xeer shalay dadkii macnaha degmooyinka ka yimid markii la xariyay banaanka lasoo dhigay markii la arkay inaysan u shaqeynayin danta meesha laga leeyahay banaankaa lasoo dhigay raashinkan waa laga goostay maamulkaan xiganay xeer khayr allah siiyo ayagaa macnaha dadkii daryeelay oo muxuu ahay dad wanaajiyey oo deegaan ahaan macnaha isku xil saaray waa tahay cabashadan ka jirta galgaduud gaar ahaan maamulka gobolada dhexe iminka loo sameynayo waa ay soo laalaabatay dhowr jeerna cabashada waa la gudbiyey waxaana xitaa la leeyahay cabashada waxaa qayb ka ah dadka musharaxiinta ah arrinkaasi maxaa ka jira hadda musharaxiinta hadda waaba dad ayagu xil soo doontay oo deegaankooda joogo oo aan tala badan aan lagu lahayn maalin dhowt waxaan u tagnay waxaa imaaday prime ministerka imaaday musharaxiintoo dhan waa la kulmay waxaa xataa meesha nooga cadaatay oo wasiir meesha fadhiya oo noo sheegay guddiga farsamada in ay xildhibaano yihiin su-aashaasaan weydiinay wasiirkina wuxuu ku jawaabay wasiir meesha fadhiya wuxuu ku jawaabay wasiir dowlaha inaan umalayna madaxtooyada wuxuu ku jawaabay qof cid u diidi karta cid kor istaagi karta malan hadii odagooda soo qoro marka guddi farsamo adkaas haysta waa hagaag haddaba halka ayaan ka gudbayaa waxay ahayd musharaxa madaxweynaha xilka maamul gobolada dhexe dahabacuud oo barnaamijka markaa musuq maasuqa qayb ka ahayd nagala qaybgalaysa aad bay umahadsan tahay maxamed daacad ayaa wareysanayey haddaba dhegeyste barnaamijka musuq maasuqa waxaad ka soo wacaysaa lambarkan gaarka ah galab walba uu jiro waa 64 waa 64 wax furaa oo laga hormarinayo male laylen mobile intaba waa laga soo wici karaa waa 64 waa 6daas lambar oo keliya haddaba dhegeysto waad naga soo wici kartaa qaadku way furan yihiin su-aalaha barnaamijka dila socotay sheekada ka imaan doonaan waa 64 qadadkuna way noo furan yihiin waa hagaag qaadka telefoonada iyo dhegeystayaasha ayaan jeclahay markaana fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya ee qaadka ku jira si markaasi barnaamijka uu igala qayb galo halow salaamu calaykum walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacaysa marka hore waa xasan cadcadoo joogo gobolka shabeellaha dhexe xasan barnaamijka ma la socotay shabeellaha dhexe see lagu yahay waa lagu
فعلا تكبر. نعيش بلا حاجة جوكتا. ندوب خاصة المعان. المعان هديت برنامج كلا سعودي شركة ورقة سنة سنة ملاينة. فعلا ورقة سنة. ما حيكون صعب سنة شركة برنامج قلبت. يكون نص قيد صعب سنة دول. مسق ما سوق غيبته. غيبته واحد مرنتي حاسوي صعب سنة. محل لوجها اللي غيبته لوجها اللي وأجنا برنامج المصاص ونكسب سنة هاي لكن شركة قلبت محي كهالليسي. جهل لي سوى واحد مرنتي هاي سنة مسقوس ونص عينين. ما سنتاي waxaan u maleynayaa in aad u socon barnaamijka waan kaga mahad celinaya kasoo qaybgalkaaga sida daraadid waxaan jeclaan lahaa inaan dhegeystaha xiga fursad siiyo مسؤوليتي وحلقاسي كله لو معمولو برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو قبن كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو قادتك تلفونات dhegeystayaasha ayaan wali bartan kaga jirnaa dhegeystaha xaqiiqada ku jira halo salaam calaykum calaykum salaam walaal codkaaga sar u qaad magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso magacaygu waa maxamed xasan cabdillah oo wilaayad Urwey magacaaga ku celi maxamed xasan halo maxamed xasan cali xasan cali barnaamijku waa la socotaan malaynayaa si fiican أيه علي حسن برنامج تلسعود سود وهرواس اللي وياه. قالوا في عيانين. هذه برنامج تلسعود علي الشركة قالت معي قصة سنة. قالت لي يوم كسر حي دفك ربع معنا إسكنديان دفك يوم كسر حي. أيه مركا إن سيدا مركا ضد كاسي عدالة وهيل كران. وهيل كران معنا إن السحب وكارك دفك سوق على يسوي عن لو كنترول. ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dadka noocaas oo kala ee dadka masaakiinta wixii loogu tala galay dadaal ugu jira inay isticmaalaan kana mahuraana iyo wadaha ehlo budco ayu sumaasuq yahay قدك حاجة دقيستها كجرا أيام فصلت سينا يا هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا المقع عاقة؟ آسي محمد علي آسي نشاط وجفتك ما يوجف. آسي نشاط برامج كمان سعودي. سي ونكسن والالكي. سيلوجيها وذجر. ورب ونكسنها. هاي برامج ده لسعودي آسي الشركة معي كوسع سنة. كوسع سنة إن أنت بدن إن ضدك سوق حي يدك كان سوق حن مركي أركان ضدك سوق أو واحد لو قبنا ضدك هرو جوجي إسكت ضيعان إن إيجانا كخيب قاتان جاليدها فكان سوى نفسه إيجانا إسكت دجان ضد سوق حي يمن كي معلاه. مركي آسيو سيدا لو جود بكرة عقبضها نوع سوق كلاد سلذا. waxaa looga gudbi karaa in dadka fadhiya jaaliyadaha ama dadka qaxootiga wax u qabanaya inay si lilaahi wax ugu qabtaan ay kala hubiyaan aynan ugu qaban qof walba kaalay soo dhawaa uusan iska dhihin waa maasantahay asiyo waan kaaga mahad celinayaa sida habooneed barnaamijka uga soo qayb gashay maqal ninkii moogowna maqal
qaadka teleefanada ayaa weli guda jirnaa qadka xiga dhegeystaha ku jira. Halo, salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وادي السلامي شغالة إذاعة بنادر ملك السودان وحنا الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله المقعقة مقعقة هو محمد أحمد محمد فقد أو كل دقن دقمة كاران قاف أحان لانت النجيلي محمود أحمد محمد فقد محمود أحمد برنامج درس عد سودو برنامجك waa la socday saaxiibo dabcan sheekada barnaamijkan waxay ku salaysnayd dad waxaa jira iska dhigaya dadka ka yimid Yemen ka soo barakacay rabana in dadkaas magacooda ay wax ku qaataan haye marka aniga waxaa dhihi lahaa dadka ka soo barakacay Yemen ha loo sameeyo xirooyin oo gooni ah oo ayaga oo kaliya loo ogol yahay iyo kaarar oo gooni ah haye marka sidee loo gudbi karaa caqabadaha noocaas oo kala صحيح waxaa loo gudbi karaa in loo helo cid kontaroolsha oo u xil saaran qaxootiyaasha ka soo barakacay dalka Yemen aye saasa ku talin lahaa dabcan وما سنت وان كاغا ماد علنا فكر كاغا iyo sida boonad barnaamij soo qayb gashay namaqal ninkii moogo namaqal مسؤوليتي وحلقاسي كله لو مامورو bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco waa tahay qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo barnaamijka markaasi uga qayb galo. Assalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاد عسيس فرسمي قانا دمان دقيستياشا بقل سدح أفضل عفر مقاسي سبحان الله هي قلب وناكسان رمضان كريم wanaagsan oo wacan walaal magacaaga walaal waa Saara Macalin Maxamed oo joogta degmada Yaaqshiid. Saaro dadkii toddobaadka hore guuleystay ku jirtaan umaleynaya si wacan haya lacagta lagu soo turwaasha umaleynaya si wanaagsan waa ku mahadsantihiin. haya Saaro hadii barnaamijka la socotay Yaaqshiid see lagu yahay Yaaqshiid waa lagu wanaagsan yahay ma sha Allah waa la iska barwaaqaysan yahay waxba ma jiraan soo gudub Saaro bal maartay hadii aad barnaamijka la socotay sheekada galabta waxay ku saabsaneed sheekadu wallahi waxay ku saabsaneed in dadkan ayagu markaan soo barakacay oo Yemen ka soo barakacay dadka ganacsatada iyo dadka waxaysan ayagu marka ay u yaboohayeen balse dad ayagu iska cayntoon dadkaas ay u tabaalaysan ay ku soo dhex dhuumaalaysanayaan oo iska dhigayaan dad ayagu baahan marka sidee loo gudbi karaa caqabadaha noocaas oo kala wallahi waa la gudbi karaa hadii la isku tacluujiyo cid isku tacluujisaan jirina islaam waayo hadii oo dadka qof walbo dadka oo ayagu soo qaxayaan iyo dadkan ayagu magaalada hore u jooga maba isku muuqaal maba ahan ila taaniga la iskuna ka himan karo waata Saar waa maasantahay oo kaaga mahad celinayaa sida boonad barnaamijka markaa igala qayb gashay wadaha loogu dhaco ayu musuqmaasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maaraynta dadguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan maadaama lambarkii hore naga soo wici jireen barnaamijka uusan ku baxaynin qaarkood haddaan ugu celiyo 64 25 55 waa 642555 sidaa daraaddeed dhegeystaha qad ku jira ayaan fursad siinayaa. halo asalaamu calaykum halo waan ka xunnahay dhegeystahaasi waynu ismaqli weyne musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataa micnahu haydin dhacee ninkii moogow namaqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow namaqal ninkii khadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan fursad siinayaa. halo asalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعيد أحمد محمود سعيد عداني وكالة صار الله دقمة ياسين. سعيد مياتري. سعيد أحمد محمود سعيد عداني. سعيد برنامج كمان سعودي.
barnaamijkii badan baa na socday waa musuqmaasuqa iyo qaxootiga iyo man afaaraad ayaa naga hadlayay intee naga soo wacaysaa saciid ya intee naga soo wacaysaa ka naga soo wacaysaa deegaanka yakshi haye waka haye haddii sheekada maxay waan ka xumahay saciid qadka ayaa ka go-ay sidaa daraaddeed waa ku mahadsan yahay sida barnaamijku ugu soo qayb galay iyo weliba inuu sheekada uu la socday qaxootiga yemen uu ku saabsan tahay waa sax saciid waan kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga sidaa daraaddeed dhegeystayaal kale ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo wacalaykum asalaam halo asalaamu calaykum aleykum salaam walaal magacaaga axmed xasan barnaamijka mala socotay si fiican haye soo dhowow waa dhow walaal horta musuqmaasuqa horta soomaali dhow ka jiraaye hay marka qaxootiyaasha kuwii hadda qaxaya kuwa horta waa dadka wada baahan yihiin intee naga soo wada axmed xasan wada jir haye marka maxaa leedahay oo sidee loo kala saari karaa oo kuwa dhiban loo caawi karaa horta dadka waxaa fiican in la ogaado oo meeshay degan yihiin waxay cuntaan iyo waxay beeshaan in qofka in lasoo ogaada fiican leedahay marka hore survey lagu soo sameeyo dadka lasoo marmaro oo xaafameeyo degan yihiin meesha ka imaada in maa lasoo fiiriyo haye fiican leedahay laakiin hadda qof wada ku imaada baahan dad qof wada wejiga adiga weji baahida ma aragta ma garanayso waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa sida habboon aad barnaamijka markaa kaga soo qayb gashay dhegeyste kale ayaan fursad siin doonaa nama huraanayo wadaha eh loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maaraynta danguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu haddana meel kale la mara ayaa musuqmaasuq galay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo musuqmaasuq yahay qadadka ugu dambeeya dhegeystayaasha ayaan fursad siinayaa halow salaamu calaykum halow walaal raadiha iska fogey amba iska baktiy barnaamijka soo dhowow magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso magacayga degmada kaaraan magacayga fay maxamed maxamuud waaye faadumo barnaamijka ma la socotay waa la socdaa barnaamij faadumo maxaa lagugu daraa maxamuud muxudiin haye soo dhowow waa dhamaa degmada kaaraanaan joogaa qaas ahaan qaybta oo gubadley haye waa la socdaa waa ku mahadsantihiin barnaamijka waa la socdaa in masaakiin oo qaxootiya la rabo dad deegaan inuu dhaco marka haddii aad sheekada la socotay maxaa kaaga baxay sheekada wax badanaa iga baxay waa dad deegaan inuu soo gambado dad qaxootiya soo barakacay haye dadka deegaanka waa deegaankee dad deegaan oo degan magaalada inuu dad barakaca oo ka yimiday gobolka oo xagga oo hadda soo gambado gadaashiita ii muuqato sidee marka musuqmaasuq oo dhan lagu hortegi karaa waa mahadsantihiin in laga fogaado waa mahadsan tahay faadumo oo gubadley naga soo wacday waan kaga mahad celinaynaa barnaamijka waa mahadsan tahay marar kalaan filaynaa inaad nagala soo qayb gasho bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha eh loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay guud ahaanna intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii gaarka oon kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida loogu hortegi karo dhammaan dhegeystayaashii qaadka taleefanada naga soo wacay way mahadsan yihiin waxaan kaga mahad celinaynaa sida habboon ay barnaamijka kaga qayb qaateen 5 ka mid a dhegeystayaasha ayaa guuleysteen 5ta guuleysatana way arki doonaan amba taleefanadooda ay ka dareemi doonaan abaalmarinada loogu soo tuuri doonaa sidaa daraaddeed dhegeystayaashii toddobaadkii la guuleystay oo barnaamijka kasoo qayb galay saare macalin yaaqshid ayaa ka mid ahayd balse zahar waxaan leenahay mahadsan tahay sida markaasi aad barnaamij uga soo qayb gashay waxaan 5ta abaalmarinayno aynu ka dhigi doonaa 5 dhegeyste oo 5 cusub ayaynu ka dhigi doonaa haddana toddobaadkan si markaa barnaamijka dhammaan asxaabta uu gaaro sidaa daraaddeed 5 kale cusub ayaa guuleysatay toddobaadyadii hore kuwii guuleystana way mahadsan yihiin ayana farsamada abdulcaziz daahir calisow tabinta abdulcaziz cabdullaahi maxamed riyeli ka qaybgalka maxamed daacad iyo weliba madaxweynaha maamulka
u sharaxan gobolada dhexe daabacuud ayay ahayeen barnaamijku waxaa taabagelinaysay hadda markhaati waxaa baahinaysa idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho waa bahdii barnaamijku isku dubanoodan leh nabadgelyo